السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال كعيو waxay foolanaysaa dagaal u dhaxeeya hawiye iyo daarood. Cidda guusha raacaysa muuqaalka kugu dul istaagaya, cidda gardarana muuqaalka kugu dul istaagaya. Dagaalka wuxuu salka ku hayana muuqaalkan kugu dul istaagaya. Waqooyi bari Soomaaliya oo sheegtay inaysan mar dambe xishoonayn ay soo socoto gooja cadatu hadda kadib imaanaysa in la isdooxo ay imaanayso in mar dambe ciidanka waqooyi bari Soomaaliya isan gacmaha ka xirxirnayn. qodobka isagana isla muuqaalka iyo qodobkayga u dambeeyaan kugu dul istaagaya inta aan qodobadaas xaaladda guud ee Puntland laftirkeeda qayb u ka yahay kugu dul istaagay Mizaa Cabdi Barre iyo Xasan Sheekh Maxamuud wadanka waxay ku qabsadeen inqilaab aan dhig ku daadan waxaan u fududeeyay inay dalka qabsadaan mar golaha mustaqbal xumada Soomaaliya oo waxay taagan yihiin Soomaaliya lagu celiyo kumeel gaar waa dawladii Cabdullaahi Yuusuf weeye ha loo celiyo kumeel gaarka Sheekh Shariif ana ka saaray kumeel gaarka dalka tiiba isku raaceen waxaaba hawiye waxaaba daarood waxaaba eelay waxaabada caalamka qaarkood waxa la leeyahay Soomaaliya ciidamada nabad ilaalinta ee jooga yaan mar dambe Soomaaliya shalay ma ogeed qof iyo cod ma ogeed shalay in Soomaaliya yaan cunaqabateynka laga qaadin yaan Soomaaliya deynta laga cafin yaan Muqdisho nabad noqon oo dhiigu ha qulqulo ma ogeed in la lahaa haddana yaan ciidanka xoog dalka Soomaaliya ee al-shabaab la dirin maanta waxay maraysaa Soomaaliya oo qof iyo cod ku naaloonaysa oo inay shidaal qodad ku naaloonaysa oo inay dunida la jaan qaad ku naaloonaysa cararaya wakaasa gabadhiid waa cararaya kuwii kale isaaq ay halka ku dhuumanayay waa cararayaan Sheekh Caldheere iyo tiimkiisa waa kuwaasa kaba ku tukadayo kulli tan ay ka cararayaan marka dalkaas maanta awoodda leh kuwaasna duurka saa loogu baxsanayo oo laga harin waliba baa waxa la leeyahay loo celiyo kumeel gaar waa kugu celinaya dalkan Xasan Sheekh Maxamuud iyo ninka la dhaho Mizaa Cabdi Barre inqilaab aan dhig ku daadan bay ku qabsadeen kursigaana ma dhiibayaan ama beesha caalamka u gal ama Soomaaliya kumeel gaar baa loo celinaya ama hadday labadaas kursiga dhiibaan marada ay ku jiraan ragba kuma jiro haddaan cod si cad kugu sheeyaa marada ay ku jiraan nin ragana kuma jiro qabiya ninkada dhamaystira waa been waxay deen afiyeen ma jirto ummadda intaas been bay ku soo wadeen haddaan warka ay sheegay sax yaana barnaamijku imaan doona nimankaas cida kursi siinayaan ma jirto kuraasna iyaga waligood ku fadhinay inta maanta Soomaaliya xal ugu soo gaaray ra'iisul wasaare iyo madaxweyne aan loo kala qoran salaaxi karin la isku diri karin loo kala neekin karin dalkii hal aragti yeeshay xisbiyaashiyo la aadayo markaasay markay ku leeyahay maanta iyo hadda laga soo bilaabo fursadda aan ka faa'iideysanaya waxa jira wax afkaaga ku macaanay laakiin afka walaalka ku macaan waxaan baa u dirayaa nimanka daaroodka ay kuraasta ku fadhiya waxaan leeyahay halka hadduu nin hawiyaa soo istaago oo dowladnimada Soomaaliya hal difaaco waa kuwa khawaarij ba laga adkaaday halkaas laga baxay waa la caayo waxa leeyahay wariyaa ma anaga dowladnimo noo sheegay hawiyaa ay kursi haysta ama waxa leeyahay waa hawiyo kursi buu haystaayo kursigiisu difaacanaya wariyaa orod malabaaniga cun laakiin kuwa kuraasta fadhiya ee daaroodka ah waxa maanta Puntland lagu karkarinayo oo maamulka daarood ugu facaweynaa ah oo hooyadii Soomaaliya ah oo aad ka soo jeedaan reerka doonta daaroodka ah ilaa min ra'iisul wasaare ilaa min agaasime ina kulligin cod dheer dowladnimada Soomaaliya ku difaacdaan weeye ninkan imaaraadka u shaqeeya oo Netanyahu u shaqeeya oo shisheeya u shaqeynaya oo madaree Puntland iyaga khaati bilaa ay ka taagan yihiin sheegay inuu mashaariicda qaato oo lacag kaash ku qaato waxa sheegtaan wixii danaha Soomaaliya uu ka rabay immigrationada iyo hadii qof shaqo loo geenay dhamaantood inuu dawladda si direct ah ula soo xiriiro inuu teleefoonadeeda ka deen la yahay laakiin hadda waxa la run laga aamusay baa leeyahay been baa ka xoog badisa runta aad la aamusantii Saciid Cabdullaahi Daniga laftirkiisa hadda kuraasta ku fadhiyaan shal mar ku fadhiyay gabayada aad qortaan maanta iyo erayada sarbeebta ah oo macnaheedu noqonayo marka la eego isaga loo eego suu shalay ahaa iyo maanta Puntland noo ilaaliya halkana mishaarka ka qaadano taasoo noqonaysa gabayada aad direysaan si cad oo bareer ah inta kuraasta fadhiya ee dowladnimada Soomaaliya u difaacdaan weeye oo aan laab lahayn oo aan shaki lahayn xukunka soo haray bari baa laga qaaday bari xasanna ma hayo xamzana ma hayo ilaahay baa bari haya ilaahay baana gacan weyn ويرزقه من حيث لا يحتسب الله ميل وين كان إرساقية ما أنت رنت شك ودولة Soomaaliya u hiiriya ama nimayow intaas oo wiil oo ka yimid Jubbaland oo ka yimid Puntland oo ka yimid waqooyi bari Soomaaliya oo daarood ilaa ah baa xamar joogay dadkina albaabada waa ka xirateen
idinkiina waa aamusantihiin dowladnimadii ma difaacaysan ninkan hadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya diidan dastuurka Soomaaliya ku qoran tahay Puntland State of Somalia ciidamada Puntland inay yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya aragtida noocaas xataa ma difaaci kartaa waxa la aamusantihiin anigu ma aqaano idin kala saari maayo gabigiinaba inaad dowladnimada Soomaaliya difaacda waa ku khasbantiin ninkaas ku daawanno odayga fursad buu siiyay xoolaha wiya meeshan lagu ma cuno Soomaaliya u shaqeysaan isaguna bari wuxuu ka tagayaa idinkuna bari waa ka tagi doontaa maanta dowladnimada Soomaaliya difaacda kaga baahan difaac xaabaha wiya iyo xaaba daarood iyo xaaba beesha caalamka iyo waxaan qashinka ay lagu leeyahay golaha mustaqbal xumada Soomaaliya wariyaa idin kama af Soomaali badnay nimanka af ba ka celiye sida wiilka wiyo fiqi u dhooqeysanayo ula dhooqeyso dhooqa ka celisa hooyada was ba ka dhicisa xabad ba ka dhicisa erey ba ka dhiciya waxa la aamusantii aan garan maayo laakiin aad dhig isku yeeshaan oo aad dantina garataan oo aad Soomaaliya waxa badbaadada tahay waa ogtiin aad garataan oo TV-da si bareer u timaadaan banaanadu ku boobaadanaya qodobkaas halkaasaan kaga gudbay waxaan dul istaagay meesha Galmudug iyo Puntland calaamada ka socota horta Galmudug iyada oo u imaanaya halka idin reer Puntland si caadi ah wada hadlaynaa gaalkacay balaaya ka jirta ii sheeg ani meesha abtiyaashi baa degan ninkan Ismaan Maxamuud dekanada uu Boosaaso kala soo cararay dekanada uu Qarda kala soo cararay markuu gobolka bari joogana wiilasha bahdir oo boqortooyada ah oo Puntland dhashay isugu tagtay oo waxba laga qaadi waayay oo kursi maalay ku helay oo tii isaga iyaga Cabdullaahi oo daaro cun wata kala gaadhay looga micnaheedu ma aha inuu galkacay ka dhaxraadinay Boosaaso iyaga wada degay hadduu ka adkaanay sidii jiridii laag ugu dhunteen si bareer oo dowladnimo ah buu u weerari lahay dekanada oo ciidanka kugu soo daabulayo oo ii sheeg maalin kasta intaas oo kun oo ciidan oo gaalkacay ku soo gurayo gaalkacay haday caawa xabash qash tiraahdo dhanka Puntland isbitaal ma leedahay idinka weydiinayaan leer ma leedahay goobo ganacsi ma leedahay intaas ishaas xaasidnimo idin yeeshay hadda runta idin sheegay ishaas xaasidnimo idin yeeshay laakiin hal qodob idin badbaaday qodobka idin badbaaday waa maxay waa nabadda aad ku wada nooshiin idinka iyo dariskiina shalay toole idinka gudihiina isku marnaan jiray dhakhtar iska dila kan kale iska dila gabar iska dila gabar kufsada mid kale caaya waxa dowladnimada 28 sano qoys Maxamuud Saleebaan la dhaho oo aan aqliyan korin oo idinkana aad intaas ila xataa ku canaana idan oran wareede reer dhan baan nahay lix jarban kursi ku soo noqonay isma dhaanne Puntland dhig joojin xataa ma leh waxaan ciidan iyo hub iyo balaaye iyo maanta dhan waxa laga ma shaqeyn karee war dadku horumar buu ku tilaabsanayaay aqliyiinu dib u shaqeyn waayay olaada gaalkacyo Saciid Cabdullaahi Dinoorto waxba yeelimayso deeqada cidu galinayna waa reerka halka degan way oo ma jarteen oo leelka sare oo cid kasta leh oo daarood leh oo deegaanka degan meesha xabad dhacaysa u dhaxaysa hawiye daarood suu mulaax rabo imaaraad ku rabaan gooni goosad ku rabaan cid kasta rabaan kuwa beenta sheegay Puntland baa lagu soo duulay Puntland baa halkan laga yeeray inta saatiraada shalay farmaajo la socotay inta sidaa leh markaan anigu Saciid Cabdullaahi Dini waday oo dadka san ka gelinayay iyaga dhamaantood Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dekadaas garaac diiday bedabada ku watay maanta marka aad ku wada socotaan oo Puntland baa la badbaadinaya Galmudug hal weeraro waxaad ka heshaan horta aniga waxba hayga siinina u maleyn maayo in nimankaas dhulka wax ka yaalaan inay ciidan la'aan haysana u maleyn maayo waxaan aaminsanahay inay diyaarado baqradaan haystaan dhankoodana isbitaal leh oo caafimaadka loo aadaa dhankooda caweyska loo aadaa dhankooda nabadda loo aadaa dani waa bahar dhul bahante waxa uu kala soo cararay Boosaaso iyo Qarda meesha haddii gaalkacay laga aqbalay kolleyba anaa nasiib leh markaa soo qaxdaan Garowe guryaha qaalida kaga dhigaya Garowe meesha la dhaho baan guryaha qaalida kaga dhigaya afka idinka garaacaya waxaan leeyahay ninkii xaqlii kursiga lahaa weeye kabaha iga daba qaada haddii kale nabadaada maanta ninka gacanta ka qabo odayaasha dhaqanka shir ka soo saaraan colaada hadday tahay mid daarood gudihiisa oo ka wadana ka joojiya magaaladaas hadday xabad bilaabato way fududaasay ku bilaabato mudug laakiin waxa adag say ku istaagi leed ba xabada adag waayo nimanka beesha caalamka lagu dacweynayo degan meesha Galmudug degan maxay ka shaqeynayaan Soomaaliya warkaas si fiican u dhageysta nimankaas horta maanta dawladda Soomaaliya adeerkooda Xasan Sheekh Maxamuud baa horta u haya meeshan ciidan baa degan xoogga dalka Soomaaliyeed guutada 12aad baa degan danab baa degan Galmudug ciidanka daraawiishto 15 kan u dhaafay leedahay u baqi maayo
laakiin maseerka nimanka laga maseeray waxa weeye qof iyo cod shalay Siciid Cabdullaahi Dani baa qabtay xasan sheekh maxamuud waa hawiye ma qaban karo liibaan shuluq oo sacada oo hiraab ah oo hawiye ah isaguna kama qaban karo magaalada gaalkacyo qof iyo cod colaadaas intaasay salka ku haysaa waa maseer weeye shalay haddaad maqli jirtay ciddaasi iyadoo maseer u dhimatay markii dhulbahaanta dhashay halkaa kaga qusqaado waa maxaa galmudug qof iyo cod doorasho uga dhacaysaa weeye wax kale ma aha sababta walaaqda ninkaa usoo saarayo oo uu beesha caalamka ugu dacweynayo weliba intuu idiin soo saaray maahay inta kale uu liibaan ka qoraya ka badan wuxuu ku shaabadeeyey inuu yahay liibaan war road inuu yahay liibaan qabqable inuu yahay liibaan jiri inuu liibaan yahay wax siftiya oo nolosha ku fashilmay oo gaalkacyo nabadda u diidan oo ciidan kusoo daabulaya oo diyaarada keenay buu ku shaabaday waa nin aan la dooran weeye oo kaambeen ku jira maanta waxaan arkay facebooka ku arkay meel la yidhi ceel dibir miyaa la dhahaa baan ku arkay isagoo sii maraya oo shacab qof iyo cod weydiisanaya waxaa dhinaca socda dani oo in adeerkiisoo jabiye la dhaho waxaa kasii horreeyey sheekh shaakir baa kasii horreeyey horumarkaas iyo waxaasoo dhan galmudug ka socda ninka loo diidan yahay hadda kuu sheegayaaye waa ninkan weli aan la dhaarin oo aan kursi madaxweyne qaban oo aan meesha madaxweyne ka noqon ee liibaan shuluq la dhaho maalin kasta uu gaalkacyo yimaado reer gaalkacyo oo ay markhaanti furayaan dani uma tago islaamka liibaan oo gaalkacyo yimi oo aan islaamka u tegin oo fadhigiisa ugu tegin oo soo karaameen ma jiro wiil mudug degan labada dhinacba intuu liibaan wax ugu tegay kasoo waayeyna ma jiro wiil puntland degan oo dhanka galmudug weliba nimankaa sacadka dhibaato ku qabana ma jiro way jiraan miyiga tuurtuur iyo geeldhicid iyo taasna geeljiray u yihiin kuwaas laakiin magaalada gaalkacyo markii laga hadlayo oo labeeteeda laga hadlayo dad xataa ciidan isku dhafa leh oo xilligii farmaajo la sameeyey oo maamulkaasi dhibaatada haddii wiil qof dilo oo dhinaca u cararo soo qabta haddii qof dhinacan kale lagu dilan dhinacan kale usoo gudbiya ma ahaydeen mise miidaan ahayd liibaan hadda maalota gaalkacyo waa joogay dadka xataa dhinacan kale daanteen anaga degan baa dhanka liibaan aaday oo kasoo kaambengareynayey oo jabiye u tegey oo sheekh shaakir u tegayey oo boqolaal kun oo qof gaalkacyo nabadeeda isugu soo baxay gaalkacyo horumarkeeda iyo nabadeeda Siciid Cabdullaahi Dani maseerkiisa ma loo baabiin karaa u malayn maayo reerkaas labada reerood meesha degan hawiye daaroodka inuu warkooda intuu mulaaxa galo ay isdagaali doonaan u malayn maayo anigu laakiin mulaaxa midda uu waxa weeye dagaal hawiye iyo daarooda waxaana qaxaya hadda kuu sheegaya daarood baa qaxaya sababta daarood maanta ma mideysna ismaan maxamuud dhaxaysa isa salaamin bahdir iyo bahd dhulbaanta isa salaamin cumar maxamuud gudihiisa isa salaamin leel kasa iyo majeerteen isma salaamaan majeerteen dhaxaysa reebicdiyaan cumar maxamuud isma salaamaan cumar maxamuud iyo daaween isma salaamo daaween iyo reer maxamuud isma salaamo majeerteen iyo carab saalax degan isma salaamaan ciise maxamuudka iyo cumar maxamuudka meesha degan isma salaamaan daarood maanta midaysan ma jiro marka Siciid Cabdullaahi Dani hadduu caqligiisa heerka uu siiyey daarood waxaa ku midayn kartaa ama shacabka puntland kusii jeedin kartaa inay gaalkacyo xabad ka dhacdo oo dagaalkaasi weynaado oo hawiye daarood noqdo oo xabadaasi ballaarato oo aan hawiye meesha ka rarno ma guurayaan weligood bayse guurayn laakiin cidda maanta jilicsan wallahi waa adiga oo maatada ah haddaa kuu sheegaya wallahi cadiim inaan been kuu sheegay waa kuu naxayaa qofka maatada ah oo aan dagaal waxba ka aqoon oo colaadda mudug waxba ka aqoon oo bidaha ah oo midgaanka aan bax dhulbahantay oo xataa ciidamadii puntland kala qabyaaladeeyey walaalo waa adiga oo reerkoodii bax dhulbahantay wax kasta siiyey wiilkaana soo haray liibaan baa ku gebagabeynaya liibaan wax dhibaato ah oo uu deegaanka ku hayo maanta ma jirto waa musharax ma aha liibaan madaxweyne galmudugna hadda qoorqoor baa ah xukun laguma wareejin doorasho kuma guulaysan Siciid Cabdullaahi Dani sabab uu maanta ninka uga maseero qof iyo codka ku naaloonay oo xataa laba jeer ka hadlay hobyuu ka hadlay oo sheegay oo yiri meeshaan hub lagama soo dejin karo oo ciidan laguma aruurin karo oo puntland lagama duuli karo halkan nabadda puntland baa laga ilaaliyaa 100 jeer buu sheegay waa ku celceliyey laakiin haddaad leedahay beesha caalamka uga dacwooday adoo ilaahay uga dacwoodaa la qaatay ninkaas saacadka ah saasaa lagu qaatay intaad leedahay beesha caalamka ma taqaana kuwii caydiid iyo sacda iyo habar gidir iyo hawiye oo dhan ay magaalada xamar ku jiidayeen soo beesha caalamka oo la oranayay rancharisku marootiba oo hilibkoodaba xamar lagu cunayay oo markii dambena ka cararay lafiisaba uga cararayba
miyuu sahayn horta maraykanka iyo beesha caalamka sheegayso mise beel caalam kale hadda soo dhalatay oo timi waliyaa waxaan dadka kale aqoon baa tahay reerkaas waxa gafka iyo ninkaan waraaqaha ka qorayso raaligelin ka bixi haddii kale beri iyadoo ka xun oo ka fool xun oo iisheeg aad shalay ma ahayd boqorkaygiiyo ma ahayd boqorkaygiyo haddaad si khaldan wax u fahmay hadhihin dariskaygiiyo aabii federaalkow si khaldan haddaan wax u arkay inaad gacanta iga qabataan bay ahayd adoo la yaan beri lagu arag ciise mashruuc oo cali saleebaana dhibaato lagula kacay waxaas la raaligelin inta la is caqliyeysto baa la oran doonaa meeshan waa caasimad sharci bay caasimad ku tahay xabadda qardha lala soo dhaafay oo boosaas ninkaa loogu ridi waayey oo carma xataa ciidan puntland baa jooga loogu ridi waayey oo sheerbi loo fariisan waayey oo intaas lala soo dhaafay oo nugaal lala soo aaday waa dekano cali saleebaan laga galay si nugaal meel u taalla maanta ka aamusay oo nin maxamuud saleebaana uu geystay oo annagana lala soo hoosgalay oo wixii sakhraanka ayoo muumin oo cabtooyda ahaa loo adeegsaday horta mid naga haraysa ma ahe odayaasha dhaqanka raaligelinaha ka bixiyaan gobolka nugaal itiri ma arag se halkan ninka beeldaajiya waa ka raaligelinaya isaga iyo jifidiisa cali salaamba waa ka raaligelinaya waxaa leeyahay waxaan la qabna maaha afka dadka nugaal jooga anaa ku hadlaya khalad dhacay oo dowladnimada laga galay oo cali salaam laga galay oo siyaasigooda rugcadaaga laga galay cabduqaadir muumin bay dekano waxay gelisay buuraha gelisay oo daacish u geysay ninkaan nin wax bartay weeye laakiin laftirkiisu waxaan loo geysanaya waa nin oo meel bay ugu qoran tahay isaga iyo reerkiisaba ma berri markii ciise qabsaday soo bixi doonaan ma markay iyagu lafkooda qabsaday aargoosan doonaan ma iisheeg ma si kale u aargoosan doonaan ma aqaan laakiin kolleyba nabarkaasi waa nabar iyaga meel ugu qoran laakiin waxaan leeyahay ninkaas arrintaa lama qabno naga raalli ahaada nin sakhraan oo muumin la dhahaa sameeyey waa idinka raaligelinaya anoo garaadkii gobolka nugaal waxaan dul istaagaya waqooyi bari soomaaliya maanta firdhiya waa hadlay wuxuu ka hadlay horta inta firdhiya hadalkiisa anoo tacliiqinaya mid idiin sheegaya puntland waagii la dhisayey ayraboorkeedu banka qiyaam iska dhaafay orodii ashahaadu ah waa ku celinaya kaas somaliland ka daran buu ahaa labadaa maamul sida maanta waqooyi bari loo asaasay baa meel gooniya mashaariic ma jirin waxba ma jirin galmudug saasoo kale hirshabelle saasoo kale aniga waxaa fahmi waayey kuwa mucaaradka ah ee waqooyi bari soomaaliya gaajada haystaan fahmi waaye waa kow waxaa fahmi waayey shacabka reer waqooyi bari iyaguna soomaaliya waxa ay cod dheer ugu sheegi waayeen walaalow haddaan gaajaysan nahayna garowna aadi mayno hargeysana aadi mayno ee garow iyo hargeyso qulubta allaha nooga kirreebo inaad tirahdaan maxaa idin diiday waxaa soo haray xamar maxaa ka rabtay waxaa ka rabtay maamulka in lagu aqoonsado madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha fadhi kuugu yimi sharaf iyo karaamada intaa leeg bay kuu sameeyeen mashaariic iska dhaafay ciidanka waqooyi bari soomaaliya wixii soomaaliya hadda uga go-an oo dhaqaalahooda way qaataan oo lagu kabi karo wixii kalena waa mashaariic process maraya dhaqaalahaagaa laguu suuq geenaya shidaalkaagaa laguu suuq geenaya hantidaagaa laguu suuq geenaya inuu maamulkaaga difaaco wixii gaajaysan iyo cabtoow ah iyo qashinah iyo quruna hargeysa aadaya wallaahi ka daba tegi mayna oo bilaahi otallah culays bay nagala tageen wixii hargeysa aaday wixii garowa aada laakiin maanta kadib mid ogaada ciidamada waqooyi bari soomaaliya waxay awood u haystaan rasmi ah in deegaanada waqooyi galbeed ay gacanta ku hayso dhan inay dooxata ka sameeyaan soo iyagu nabadda ma diidin iyo weliba kan puntlandba inay labadaba dooxata ka sameeyaan oo dhegta dhiigga u daraan waxay arkaan firdhiya warka uu idin soo faray oo fariinta ahayd oo ahayd gooja cadalabaa soo socota waa warkaas weeye ciidanow hadduu soo baxo arrinna waa fulid geel haddaad dhici karta dhac haddaad ari dhici karta dhac haddaad lo dhici karta dhac haddaad iisha gaariqaad dhici karta dhac haddaad mid kale oo naag kufsan karto kufso saasuu ku leeyahay firdhiya gooja cadalabaad baa soo socota macnaheedu waa maxay haddaan shalay xishoonnay markan annagaa weerar ku yiri ciidankana maanta kadib firdhiya waa fasax shalay ma ahayd muusow ciidanka fasax ma ahayd shalay firdhiya maanta kadib ciidanka waqooyi bari soomaaliya xor wey inay deegaanadu difaacdaan meel kasta oo ay qulqulata ka geysan karaan inay ka geystaan af cad buu maanta ku sheegay xishoodkii baa dhammaaday walaalnimadii waa dhammaatay maxaabiistaana soo hartay soo maaha isaaq gusku kusii dhereynaya maxaabiistaan haddaa kuu sheegaya waa la xukumayaa maxkamaddaa la geenayaa wixii dil toogasha ay dadkan laayeen waa toogasho
wixii xabsi daa'ina waa xabsi daa'in wixii 30 sano iyo 40 sano cimriga iyo madaxaha ku furto aan waa madaxaha ku furto cid allaale nin kasta xukunkiisa waa u maraya waa biyo kama dhibcaan weeye maxaabiista nin la sii deynaya jirin maxaabiista la siyaasadeyn karaan jirin dadkan iyo deegaankan hubna waa haystaan rasaasna waa haystaan haddana waxay soo wadaan webiga waxay soo wadaan baa weyn ee meel ku qoro shalay hadday gobonnimo dagaalameen oo markii cisaaq jabay ee ka hareen maanta iyagii baa weerar ah oo gobonnimadani ka tagay gulnimo qaatay madaxweynahooda warkooda qaatay amar hadduu soo baxo waa fulin idinkoo calacalaya oo leh reer guuraaba halkan gabar laga kufsaday ilmo yar baa halkan lagu jaqaaqsiiyey kuwa xoolo laga dhacay dhaan baa la waayey gaari dhan baa la aasay tignika dhan baa la laqay soo midaan joogi waayey maalin kasta barabaka soxnaa fakatay mid yar abto u tahay u yeero qashin kale u yeero waa joogi weydeen soo ma waxaad ka heshaan waxbaa iga siin afka firdhiyeed kula hadlay fariintu maanta firdhiyeed idii soo faray oo daaha laga qaaday baan hawada idii soo marinay assalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته برنامج كان برنامج حاجة كل مدونه